adigoo keliya ayaa fasiro karo riyooyinkaada. Riyooyinku waa sawiro iyo muuqaalo matalaya aragtidaada ku aad xaaladii nolosha ee aad maraysay. Haddii adiga iyo saaxiibka aad riyo ku wada aragtaan, labada riyo waxay gebi ahaanba idin kala yeelanayaan laba macnood, sababtoo ah midba aragti gaar ayuu ka aaminsan yahay eyga. Haddii aad adigu ka baqato eyga, saaxiibkaana uu tixgeliyo xayawaanka ugu fiican uu bani'aadamku la saaxiibi karo, waxaa hubaala in labadiina riyo ee isku midka ahaa ee aad wada aragteen in laba macno idin kala samaynayaan. Taasna waa sababta adigu keliya u fasiran karto riyooyinkaada ee aanu qof kale kugu fasiri karin, sababtoo ah adiga oo keliya ayaa garanaya waxyaabaha ay u taagan yihiin iyo macnaha ay ku leeyihiin calaamadaha aad ku dhex aragtay riyooyinkaaga. Xeeladooyinka la isticmaalo si loo fasiro riyooyinka. Fasiridda riyooyinkaadu waxaa suurtagal ahi inay wax yar kugu adkaato marka ugu horeysa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay dhib kaa haysato inaad naftaada si fiican u fahanto, balse markaa xoogaa ka barato fasiraadda riyooyinku, fahanka aad naftaada fahmayso aad ayuu u fiicnaan doonaa. Inaad riyooyinkaada fasiratana waxay kuu noqon doontaa mid aad kugu fudud. Waxaan hadda kuu soo bandhigi doonaa talooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u fasirato riyooyinkaada. Tallaabada koowaad, dib u xasuuso riyadaada si aad u fasirato uguna xasuusato riyadii aad ku riyoonaysay. Soo qaado qalin iyo warqad oo agtaada dhigo marka aad seexanayso, si markii aad u kacdo aad riyadaadii si fiican u qorato. 2. Qor riyadaada. Haddii aad kacdo bartamaha habeenkii, haddii aad soo baraarugto habeenka bartankiisa, inaad qorto riyadaadu waxay kaa caawinaysaa inaad si fiican u xasuusato riyada. Waxaad qortaa waxaad ku aragtay riyadaada dhexdeeda, sida muuqaaladii, wejiyadii iyo xaaladihii aad ku sugnayd markaad riyoonaysay, si aad subaxnimada markaad soo toosto aad u fasirato. 3. La xiriiri noloshaada. Waxyaabihii aad ku aragtay nolosha. Kaba soo qaad inaad riyada ku aragtay ey. Waxaad naftaada weydiisaa, muxuu eygu kuu turjumayaa? Maskaxdaaduna si xur ah uga baadh jawaab. Ma cadow baad eyga u aragtaa? Ma wax xun baad u aragtaa? Ma saaxiib baad u aragtaa? Mise waad ka cabsataa oo wuxuu ka mid yahay cabsiyahaaga gaarka? Maskaxdaadana geli in waxa aad riyadaada ku arkaysa uuna isaga laftirkiisa ka turjumayn, balse uu yahay calaamad oo keliya. Tusaale ahaan, haddii aad bad riyadaada ku aragto, bad dhab ah kama turjumayso ee waa calaamad wax kale u taagan oo wax kale ka turjumaysa.